Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada kontonkii qiso caalamiga ah ee guuleystay maantana waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa haddii eebaha awoodiisa la ogolaado shirkadda caanka ah ee eBay sheekadani waxaa qoray Axmed Khaliil waxaana tarjumay saaxiibkii Cabdinuur Abubakar Xuseen marka aad maqasho magaca eBay waxaad isla markiiba xusuusan doontaa beec iyo tijaaro elektaroonig ah oo dhanka internetka la isu mariyo waxaase isweydiin mudan in aysan ogeyn in badani oo naga mid ah sababta ka dambeysay eBay Pierre Omidyar waa ninka aasaasay shirkadda eBay waa shirkaddii ugu horreysay uguna caansaneyd ee wax lagu kala gato dhanka internetka caalamka oo dhan haddaba waa kuma Pierre Omidyar Pierre Murad Omidyar waa 52 sano jir ku dhashay magaalada Paris ee caasimadda Faransa June 21 sanadii 1967 asal ahaan waa Iiraaniyaan balse waxa uu qaatay dhalashada Mareykanka waana aasaasaha shirkadaha eBay Omidyar Network iyo shirkado kale oo badan Omidyar hanti ahaan waxa uu haystaa 12.5 bilyan oo lacagta Mareykanka ah Pierre waalidiintiisu asal ahaan waxa ay ahaayeen Iiraaniyiin waxa ay yimaadeen magaalada Paris ee caasimadda Faransa waxa uu aabihii ahaa dhakhtar qaabilsan qalliinka guud isaga oo markii dambaana u guuray dalka Mareykanka marka uu xilliga ahaa Pierre 6 sano jir Pierre Omidyar waxa uu ku barbaaray magaalada Washington ee dhacda xeebta galbeed ee dalka Mareykanka isaga oo joogay halkaasi muddo 2 sano ah Omidyar waxa uu muujiyay jaceylka uu u qabo elektarooniga iyo qalabka kombiyuutarada xilligii uu dhiganayay iskuulka sanadii 1988 ayaa uu qaatay shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda hase yeeshee xilligaasi kama muuqan wax horumar ah oo dhanka waxbarashada Pierre markii ugu horeysay ayaa waxa uu shaqo ka helay shirkadda Carles taasi oo ahayd qayb ka mid ah shirkadda caanka ah ee Apple waxa uu ka shaqeynayay barnaamij ka bixi jiray shirkadda oo loo yaqaan Macdarrow barnaamijkan ayaa loo isticmaali jiray baahinta sawirrada caanka ah sanadii 1991 Omidyar iyo laba ay saaxiibo ahaayeen ayaa ku heshiiyay in ay aasaasan shirkad internetka ku shaqeysa laguna kala iibsado badeecooyinka qaab online ah waxa ayna hirgeliyeen shirkad ay ugu magac dareen eShop balse sanadii 1994 Omidyar ayaa isaga tagay shirkadaasi kadib markii ay iibsatay shirkadda caanka ah ee Microsoft sanadii 1996 Omidyar waxa uu shaqo ka helay shirkad ka shaqeysa dhanka isgaarsiinta taasi oo in muddo ah kala shaqeynayay iibka ganacsiga ee internetka ku shaqeeya nasiib wanaag Omidyar kama tagin fikradiisii oo waxa uu bilaabay aasaasidda shirkad ku shaqeysa internetka oo wax lagu kala iibsado xurna ay u yihiin labada dhinac ee wax kala iibsanaya iyadoo ay xusid mudan tahay in ay da'diisu ahayd xilligaasi 28 sano jir Omidyar waxa uu fasax dheer ka qaatay shirkadiisii uu hormariyo fikirka ka guuxaya maskaxdiisa una xambaaro hamiga dhalan doona eBay September 4 sanadii 1995 ayaa uu tallaabo hore u qaaday isaga oo aasaasay Web Action waxa uu xilliga ku jiray hasaawihiisii uu ku guursan doona xaaskiisa mustaqbalka guurkiisa kadibna waxa uu dareemay in cashaqadiisa dhawaangalka ahi ay kaga baahan tahay waqti noloshiisa ku dareento loona baahnayn dulfadhiga kombiyuutarka iyo soo jeedka aan balse fikirkaasi waa uu ismadax mariyay isaga oo gaaray go'aan ah in uu xalliyo mushkilad kasta oo suurtagal ah siina wata shaqadiisa waxa uu isla markiina bilaabay barnaamij oo ugu magac daray protokolka isgaarsiinta loona yaqaanay TCP ama IP Omidyar barnaamijkiisan yar waxa uu ahaa mid bilaash ah isaga oo si tartiib ah isagu bedelay mid uu lacago yar ka helo kuna dabiro baahiyihiisa gaarka ah kadib guusha ka soo hooyatay barnaamijkiisan ifafaale bilaawahi ayaa muddo 3 bil ah oo uu waday waxa uu kor u kac sameeyay 20 ilaa 30% bil waliba kordhana tirada isdiiwaangelinaya taasi oo ay barbar socotay badeecooyinka lagu soo bandhigayo marka ka dambeysay hankii iyo himiladii waa ay laba jibaarmeen kadib markii uu sameeyay laan ka mid ah barnaamijkiisan loona yaqaanay feedback forum oo ujeedkoodu ahaa in qof waliba oo halkaani wax ka gataa ama looga gataa uu qori kara khibradda uu ka helay dadka ay wax kala gateen taasi oo sare u qaaday kalsoonida iyo amaanada lagu qabay bartiisani sanadii 1997 waxa uu magaca shirkadda u rogay magaca caanka ah ee eBay asalkiisana waxa uu ka yimid magaca EcoBuy sanadii 1998 waxa aad u kordhay dadka qaybta ka ah barnaamijkani iyadoo ay gaareen in ka badan 20 milyan oo qof isla sanadkaasi waxa saamiga eBay lagu qiyaasay 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah bilowgii shirkadda Pierre Omidyar waxa uu ahaa shaqaale waardiye iyo maamulo intaba maadaama uusan haysan qarashka uu ku maareynayo intaasi oo dhami balse isla sanadii 1998 waxa uu magacaabay laba shaqaale iyo maamulo fulin oo heer dhaxaad ah
taasi ma noqon mid dhamaysa caqabadii shirkadda soo wajahaysay isla sanadii xigay ee 1999 waxaa gebi ahaanba istaagay shaqadii eBay 22 saacadood oo xiriir ah laakiin umid yar ma quusan isagoo la xiriiray in ka badan 10,000 oo khabiir si ay u sharaxaan sababta keentay ciladani iyadoo ugu dambeyntiina la xaliyay sanadkii 2003 waxaa shirkadda eBay xaqiijisay faa'iido dhan $2 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyadoo macaamiil ahaan gaartay 90 milyan oo qof taasi oo keentay in badeecooyinka lagu kala iibsado eBay ay gaaraan 45,000 oo nooc oo badeeco ah waxayse shirkadda iibinteedii ku dartay iibinta Paybel iyo Skype iyadoona fududeysay in dadka ay u talaabi karaan suuqyada waaweyn sida suuqa weyn ee China iyo kan Hindiya taasi oo xiiso gooni ah u sii yeeshay eBay waxaase xusid mudan in aynu xasuusanay in shirkadda eBay horumarinteeda kaalin lixaad leh ka qaadatay haweeney ka ahayd maamule taasi oo aad ugu fiicnayd maamulidda shirkadaha waaweyn mar waliba xusuusnow bini'aadanimadu waa wax uu alle dadka ku abuuray malahan cadaan iyo madow gaal iyo muslim biyeeri iyo xaaskiisa waxaa lagu ammaanay in 100% faa'iidada shirkadda ay ugu deeqaan samafalka dadka tabaalaysan ee caalamkani ku nool